kulan ay isugu yimaadeen aqoon-yahanada dhalinyarada haweenka iyo odayaasha jaliyada Awdal ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay kaga hadleen saami qaybsiga Somaliland. kulankan oo ka dhacay gobolka Minnesota ayaa waxa ay jaliyada ku sheegeen in ay diidan yihiin saami qaybsiga Somaliland iyagoo xildhibaanada laga soo doorto deegaanadaasi ugu baaqay in aysan aqbalin kuraas aan u qalmin. haddaba shirkaasi waxa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan, hadaladoodina waxa kamid ahaa beelweynta Gadabuurse ama Samaroon ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa maanta iskugu timiday inay ka hadlaan arrinka saami qaybsiga ee ka jira waddanka Somaliland kaasoo iyagu aad uga soo horjeedaan oo aad u saluugayaan saami qaybsigaasi iyagoo markaasi aad uga gadoodsan in saami qaybsigaasi lagu galo doorashada soo socota ee baarlamaanka. maanta waxa isku keenay reer Awdal dareen baa isku keenay dareenkaasoo ka jira dhammaan caalamka iyo dalkii aynu ka soo jeednayba. dareenkaasoo soo bilaabmay 1993 muddada dheer 30 sano ayaynu u soo dhabar adeegnay inaynu ma garanaysaa xaqeena ku helno qalin iyo buug. tii way dhici weyday. waxa maanta dhacday in ma garanaysaa la yiraahdo 30 sano wixii aynu sugaynay maanta ku gala ma garanaysaa saamigii oo duca qaata. dawladda Somaliland duca kuma dhisnaanayso reer Awdal. anigu waxaan aaminsanahay haddii ay xagga reer Awdal duca kaga dhismaanayso ducadii anagu reer Awdal haddii aanu duca qaadan jirnay ducadii maanta waan joojinay. waxaanu kaloo jecelahay inaanu halka kan baaq iyo taageero isugu jira u muujino dhalinyarada gobolka Awdal oo runtii muddooyinkii u dambeeyayba ahaa madaalayaal ku suntan inay ka dhiidhiyaan waxay u arkeen inuusan mataqaana xaq ahayn oo kulama sameynayay oo hor istaagay. iyagana waxaanu leenahay waxaad qarka u saarantihiin inaad gashaan oo meel sare ka gashaan diiwaanka taariikhda gobolada galbeedka. waxaan idinku boorinaynaa inaad mid ahaataan inaad halganka wadaan. dhalinyarta gobolada Awdal, Salal iyo Gabiiley ee Gadabuursi ayna ogoleyn inay galaan kana qayb qaataan doorashada soo socotay xaaraanta. waxay xaaraan ku noqotay waxa weeye bini'aadamku sidiisaba wax buu sheerin ku noqdaa. odayaashiina dhalay awooyaasheediina dhalay haddii ay garteen in nabadda ay qaataan 2 sanana looga gudbo siyaasadda inay markaasi gobolka Awdal iyo Salal ay liqdo maanta waan diidnay. raalli ha ka noqonina 30 sannadood in la idinku tunto. raalli ha ka noqonina 30 sannadood ninka dhiig lahayd ka soo baxay yiraahdo waxbaan dadka u qabanay inaad idinku soo jiidaan. waxa horta runtii aad iyo aad la yaaba oo fajaca lagu noqotay runtii 3 xisbi oo 3 nin ay ka socdaan oo isku muuqa in ay macnaha wixii ay 2 sano ku heshiin waayeen oo ahaa mid badantiisa inuu ka dhaxarki waayo meeshaasi markii ay dhawaatay xilligii waqtigoodu gaadhay inay ummad intaas oo milyan ku khasbaan waxaanay rabitaankooga ahayn. waxaan leeyahay ummadda dhulka degan Awdal haday degan tahay haday Gabiiley degan tahay haday bari degan tahayba wixii ay rabaan waxaan ahayn laguma khasbi karo. deeq darajo Universal TV Minnesota.